السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن أصحابي ميلكستو أدنى داونيسان كسور هذا برنامج كينا هبين نمو عاو برنامج كوحان إذيكوها هي قضبع الصب أو صوكر ليتني ينتينو كلا مغنين وانا برنامج كيني سدحات أو أنا ديسو قد بلينو هذا قضبع برنامج كان إذيكوها هي وحاكم إذا إمارات كا أو إستغونا هشيس استراتيجية ديد يمد ميلتري لصحيح هذه هندية أو دولة هيستا نوكليير halka Sacuudiga mar hore uu isaguna heshiis la galay ka lamida Pakistan oo iyaduna haysata nuclear xaaladda khaliijka waxay isku bedeli doontaa meel quwadaha nuclearka ay isku garaacaan tafaasiil ku saabsan sheekada waan idin hayaa xog la soo saaray oo muujinaysa Trump inuu doonayo inuu la wareego wadanka Canada taasoo keentay ra'iisul wasaaraha Canada dhawaan inuu u cararo Shiinaha haddaba tafaasiil ku saabsan sheekada iyana barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa Netanyahu oo caawa qiray inuu jiro khilaaf u dhaxeeya isaga iyo maamulka Washington iyo madaxweynaha Suuriya Al-Sharac oo telefoonka kula hadlay Trump goordhow qodobadaas aynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahineynaa inta aan ku jirno warar cusub haday soo kordhaan waan idin la socon Netanyahu ayaa sheegay inuu kala dhaxeeyo khilaaf ku saabsan arrimaha Gaza gaar ahaan golihii dhawaan uu soo magacaabay habeenkii Jimcada ahayd Trump Netanyahu wuxuu sheegay arrinka inay si weyn u diidan yihiin khilaaf weyn oo kala dhaxeeyo arrinka ku saabsan maamulka Washington waxay diidan yihiin Israa'iiliyiinta sida uu yiri sida guddidaasi loo sameeyay golaha iyo sida loogu soo daray Turkiga iyo Qatar oo Israa'iil ay aad markaa uga soo horjeedo haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray telefishinka Al Jazeera ayaa caawa qoraya wuxuu leeyahay Netanyahu wuxuu sheegay in khilaaf uu kala dhaxeeyo Washington ku saabsan golaha Gaza ee fulinta ee dhawaan markaa la sameeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa caawa wuxuu sheegay in khilaafka kala dhaxeeya Washington uu ku saabsan yahay golaha fulinta ee Gaza kaasoo markaa aqalka cad ee dalka Mareykanka habeennimadii Jimcaha ay ku dhawaaqeen iyadoo lagu guda jiro in markaa ay bilowdaan wada hadallada ama wareegga labaad ee ku saabsan heshiiska madaxweynaha Trump qorshihii uu Gaza u dejiyay haddaba arrintan ayaa waxay keentay in markaa Israa'iil ay ka boodo sida wax loo sameeyay haddaba dhanka kale telefishinka Al Jazeera ayaa faahfaahinaya waxa uu Netanyahu aadka uga careysan yahay ciidamada caalamiga ee Gaza imaan doona waxa uu sheegay Netanyahu in markaa isagoo la hadlayay xubno ka tirsan golaha baarlamaanka Israa'iil ee yiraahdo kaniisadka waxa uu sheegay in askari ka socda Turkiga iyo askari ka socda Qatar aysan marnaba ogolaan doonin Israa'iil inay soo caga dhigtaan Gaza dowrka Turkiga iyo Qatar ee dib u dhiska Gaza iyo arrimahan oo dhan waxa uu sheegay mustaqbalka Gaza in aan markaa ay Israa'iil ogoleen inay ku lug yeeshaan dawladahaas way marka sheekadan marka waa sheeko Israa'iil ay ku doonayso in Turkiga iyo Qatar meesha looga fogeeyo waa tii xalay barnaamijkayga aad ogeydeen inay ku dhaganaayeen wiilkii sodoga uu ahaa Trump oo ay lahaayeen uu naga soo horjeedaa marka sheekadaasu marka iyaduna way taagan tahay Israa'iil mar walba oo loo dhaqaaqo dhinaca nabadda caqabado cusub ayay la timaadaa haddaba ma ka yeeli doonaa Trump qorshihiisa inay fashiliyaan Netanyahu iyo kooxdiisa mise uu ku adkaysan doonaa taas waa su'aasha ilaa hadda la isweydiinayo qodobka waa ka gudbaynaa qodobka kale ee xiisaha leh caawa barnaamijka aan idinkugu hayo wuxuu yahay dhawaan sidaad ogtihiin Sacuudiga wuxuu heshiis istaraatiiji mid militariba uu la saxiixday Pakistan waa dal haysta nuclear waa dalka kaliya ee islaama ee haysta hubka nuclearka heshiiska aad u qoto dheer yahay waxa xataa dhici karta la leeyahay nooc ka mid ah nuclearkaas in la keeno Sacuudiga inkastoo Mareykanka uu hor istaagi doono talaabadaasuna Israa'iil ay khatar ku noqon doonto laakiin heshiis qoto dheer oo istaraatiiji iyo mid military ayay kala saxiixdeen oo xataa haddii qolo ka mid ah qolada kale ay caqabad aragto ay markaa toos iyaduna ay ugu hiilin doonto
haddaba imaaraadka oo sacuudiga ay isku dhaceen oo meelo badan laga saaray ayaa isaguna wuxuu doontay isbahaysi yaa kuugu dhaweysiri باكستان خليج كسو آدي إيه عدو لتاي وحي عدو لتاي هندية أو يدونا نوكليار هيست يقولنا أريكاسي كنا قاقين مات أو إسرين هاي وحي هشيس استراتيجية دين يمد ميلتريبا إماراتكو يسوقنا أولا جاري هندية حالكم مركا وادو جدا ماشو مريو هذا مركا أنا دي تصو وركي وقد بيشي كذا لقا قري تلفزيون كالجزيرة عاو حليها إماراتك إيه هندية ayaa waxa ay samaysteen shiraakad ama heshiis istaraatiiji difaac ah sida la yiri warbixinta way sii socotay waxa leeyahay imaaraadka iyo hindiya ayaa maanta isniin ah waxay ka wada hadlayaan sidii iskaashigooda istaraatiijiga iyo midka difaaca ah labada wadan ay markaa u sameyn lahaayeen kadib markii madaxweynaha imaaraadka Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan uu tagay caasimadda Hindiya ee New Delhi sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Imaaraadka ayaa waxa la sheegay madaxweynaha Imaaraadka iyo ra'iisul wasaaraha Hindiya inay markaa ay isdhaafsadeen qorshe ku saabsan heshiiskooda oo markaa hadda isfaham marayo kadibna la xoojin doono oo markaa meel wanaagsan la geyn doono haddaba dhanka kale Hindiya ayaa iyaduna war ka soo saartay wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa sheegay saxiixa heshiiskan Imaaraadka iyo Hindiya inuu markaa yahay mid markaa wax looga hortagi doono dhibaatooyinka ka jira ee gobolka sida uu yiri waaye dhibaatooyinka gobolka ka jira marka maxaa waaye إمارات السعودية ويسكون جيهين باكستان هالكاب سوق على تركيا هالكاب سوق على مصر السعودية سوق شيء وحيرن قبل كذا على سايستا إمارات مركا هالكاب سوق على أول إسرائيل نوه هيستي هذانا هندية أيو يدنا وآذي مركا حالكو هالكاب سوق مريا ذاتك مركا فرنقين يا شيء كذا وحيليه وشيكو قبل كخطر بدن وكيري كرت هندية iyo باكستان colaadoodu inta la soo raro ayadana khaliijka iyo badda cas iyo dhulkan ayay iman doontaa marka gobolkii wuxuu noqonayaa gobol mushkilada fara badan ay soo food saari doonaan haddaba saameynta waxay ku yeelan doontaa gobolka oo dhan la leeyahay Soomaaliya Djibouti Eritrea Suudaan dhulkaas oo dhan Yemen ayaa arintan ay saameyn doontaa leeyahay marka sheekadu ma wanaagsana marka ilaahay dhibka iyo mushkiladda hanaga badbaadiyo qodobka isaguna halkaas ayaanu kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijka caawa aynu ku falanqaynaynaa wuxuu yahay sheeko yaab leh oo iyaduna la soo helo leeyahay Trump hadalladii bilowgii uu sheegay markuu xulka qabsaday Canada inuu qaadanayo waa ka dhaba leeyahay Canada inuu xoog ku qaato raba hadda waxa laga celcelinayaa Greenland oo ibaartii ay leedahay Denmark hay marka sheeko la yaab la marka halka ka socota waxa kale oo la leeyahay aqalka cad mas'uuliyiin ka tirsan ayaa laga soo xigtay wadan haduusan isdifaaci karin dad u difaaca imaanaya waa la qaadanaa waa macna waa la isxoogoyaa adduunka indhaha la isu shitay haddaba marka aan idin soo isla telefishinka Al Jazeera ayaa caawa sheekadan keenay wuxuu leeyahay xogo la helay oo soo dusay ayaa sheegaya in Trump uu qorsheynayo inuu la wareego Canada xogtan oo sir ahayd ayaa banaanka la soo dhigaa la leeyahay haddaba warbixin ay qortay majalada la yiraahdo Daily Beast oo dhinaca wararka qaabilsan ee dalka Mareykanka ayaa waxay sheegtay in Trump uu isha ku hayo Canada si markaa Canada uu markaa ula wareego sida la leeyahay oo uu markaa u qaato marka sheekada waalida ah iyaduna way socotaa xogtaas soo baxda la leeyahay Canada nikan ma ka haraya leeyahay inta muddaxileedkiisa joogo adduunyada wax badan oo nikan raad ku yeelan doona haduuba sii noolaado oo ilaahay uu gaarsiiyo marka nikan meel walba ku bood waay marka ninkii iska celin lahaa isaga laga rabaa sheekada waxa sii qaraariyay aqalka cad oo la leeyahay mas'uuliyiintiisa waxay yiraahdeen wadan maxaa ka haysanaysa hadaan difaaca karin
ilaahu nabooti waay marka sheekada waalida ayaa iyaduna soo kororayso qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka caawa ayaynu maraynaa qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa arrinta suuriya sidaa la ogtiin maalmihii lasoo dhaafay ciidankeeda guulo waaweyn ayay gaareen waxay qabsadeen meelo kala duwan meelihii shidaalka waxay galabta gacanta ku dhigeen oo ay qabsadeen biyo xireenkii weynaa ee webiga furaad ayay la wareegeen meelo badan ayaa laga qabsaday kooxdii kurdiyiinta ee goonigosadka raadinaysay waa laga adkaaday marka madaxtooyada suuriya ayaa caawa war soo saartay haddaba telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay asharac madaxweynaha suuriya waaye iyo trump waxay ka wada hadleen isbedelada soo kordhay suuriya iyo heshiiskii dhowaan suuriya ay la gashay qasad nimanka la leeyahay ee kurdiyiinta ah haddaba madaxtooyada suuriya ayaa sheegtay madaxweynaha dalkaas axmed asharac in maanta oo isniina uu telefoonka kula hadlay madaxweynaha maraykanka donald trump ayna ka wada hadleen isbedelada iyo xaaladaha kasoo kordhay suuriya dagaaladii ugu dambeeyey waxaana sidoo kale lagu sheegay warbixinta ay soo saartay madaxtooyada suuriya in labada madaxweyne ay isla qaateen taageerada midnimada dhuleed iyo ka hortagga argagixisada dalka suuriya midnimada dhulka ayaa maaragtay laysku afkartaa leeyahay inaan suuriya dhulkeeda kala gooyin karin kooxihii goonigosadkana ay suuriya nagta ka saartay marka warbixintaas marka waxaa soo saaray oo ka hadlay dhanka suuriya wixii madaxweynayaashu ay ka wada hadleen inkastoo faahfaahin dhanka trump aysan weli soo bixin sida la leeyahay marka xaaladda suuriya iyaduna halkaasay maraysaa turkiga ayaa gadaal ka taagan dowladda suuriya oo isagu taageero ciidan iyo mid sirdoon intaba u fidiyey sidii loo jebin lahaa sidii aada ogeydeen barnaamijyadeedii horena waxaanu kusoo qaadanay in israa'iil mas-uuliyiin ka tirsan iyaguna ay walaac ka muujiyeen qabsashada dowladda suuriya goobaheedii shidaalka dhaqaale inagu heli doontaa waaye way lacagaysan doontaa marka sidee uga hortagnaa iyaguna waxay ka fakarayaan sidii ay u hagaldaacin lahaayeen guulaha ay gaarayso dowladda suuriya yabbaa ka socda adduunkan barnaamijkaygii caawa asxaabay waa naga inta aan mar kale kulmayno laagareeyo oo sheergareeya barnaamijka haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka ka ilooba youtube-ka facebookana follow gareey nabadgelyo